kamid ah jadwalka doorashooyinka ee ay soo saareen golaha wadatashiga qaran ee aan dhaqan gelin waxay maanta oo 10 Oktoobar ku beegneed inay dhacdo doorashada madaxweynaha Soomaaliya gaar ahaan jadwalkii soo baxay bishii Juun huwaalaan ayaa ka jirta in mar kale dhaqan gelida jadwalka doorashada waxaana habraaci u dambeeyay ee doorashada uu dhigayay in doorashada golaha shacabka iyo diyaarinta ergada lagu qabto inta u dhaxaysa horaanta Oktoobar ilaa 20 November balse waxa wali la soo dhameystirin doorashadii aqalka sare oo 6 sanatar ay ka harsan yihiin 54 sanatar ee aqalka sare ka kooban yahay lana sugayo inay soo dhameystiraan dawlad goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland shacabka Soomaaliyeed ayaa dhankoodii walaac ka muujinaya sida ay wax u socdaan waxayna ku sheegayaan in haddii ay sidaan wax ku sii socdaan laga yaabo in dalku mar kale lagu hawlo galo dagaalo dhaxmara madaxda mudxuleedkoodu dhamaaday ee Soomaaliya iyo waliba mucaaradka dawladda ee midowga murashaxiinta Soomaaliya haddaba daawade sidee ayay kula tahay